welcome Samtel Somaliland. sidaad barnaamijka karo oo guuleyso oo ka socda maalin kasta habeenka jimco soo galaya khamiista barta YouTube channelka shirkadda isgaarsiinta Samtel iyo barta ay ku leedahay social media ee Facebook. barnaamijka karo oo guuleyso saad ugu guuleysato fadlan like gare oo share gare bartayda Facebook aan ku leenahay Samtel Somaliland. fadlan barta commentiga waxaad ku soo qortaa nambarkaaga Samtel iyo magacaaga iyo halkaad joogto. fadlan nagu dhiirigeli sidaad ugu guuleysato barnaamijka karo oo guuleyso. subscribe-ta iyo like-ta iyo commentigana nambarkaaga ku soo qoro. Samtel waa shirkadda shacabka. ku xidhno markasta iyo meel kasta joogto barnaamijka karo oo guuleyso. isticmaal markasta iyo meel kasta joogto adeegyada shirkadda isgaarsiinta Samtel. Samtel waa shirkadda shacabka. daawasho wacan. soo dhawow YouTube channelka shirkadda isgaarsiinta Samtel Somaliland sidaad uga faa'iideysato markasta barnaamijyada iyo xayeysiisyada iyo internetka shirkadda isgaarsiinta Samtel. fadlan subscribe saar internetka 2G 3G 4G waxay aad u sareeyo. fadlan subscribe saar sidaad markasta waxyaabahan soo dhigno ee page-ka shirkadda isgaarsiinta Samtel ay ku leedahay barta YouTube channelka. fadlan taabo subscribe oo nagu dhiirigeli subscribe-ka. waanad mahadsantahay macmiil aad iyo aad baad mahadsantahay. ku xidhnow shirkadda shacabka ee Samtel Somaliland. inta aad iibsatay xawaare ahaan Samtel shirkadda shacabka. toban taabo cilmi baa leh tamateedii xooguna tabta weeye hilaac Samtel yaan la mooganin sarcadii adduunka u sareysay internet. adeega 4G oo caalamka ku cusub ayaa markii ugu horeysay ay dalkaaga kaaga hirgelisay shirkadda Samtel. adeegan oo ah mid xawaarihiisa ama speedkiisa uu xoog u sareeyo second-kiiba ayaad ku isticmaali kartaa mobilkaaga iyo flashta internetka meel kasta iyo goor kasta. video call 4G. جندوجان حركية كبيرة لأصفر بوروسيا اللي وسع ليفاندوفسكي adeegyo sareeya internet casri ah oo xawaarihiisu sareeyo qiimo macquul ah oo loo daneeyay dadweynaha mar kasta meel kasta goor kasta second kasta iyo saacad kasta. ha moogaanin Samtel. 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 walaal Idris waxaan wacaya dalkii oo baryaha la hadalay. waa khadka xuma filayaa way soo gelin ba maanta. halo ha walaal waa hodane. halo ka waran dadkii iyo dalkii walaal. walaal dhamaantay waan fiicannahay roobkina wuu noo daay walaal aad iyo aad. imika xagad joogtaa walaal. walaal waxaan ku sii socdaa miyigii wadankii waa barwaaqo waan caana doonanaya walaalo. miyigiya alla dadkii igu wada salaan insha Allah waan idin iman doonaa. waan kugu salaami doonaa insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo walaal. magaalada jooga ma la xiriir kari weynay kuwa miyiga joogay maxaad kula hadlaysay oo miyaanad ogeyn waxaan isticmaalay adeega casriga ee Samtel Reach Me. daafurka adeega Samtel Reach Me lacag badani ma kaaga baxda markaad wadankii la hadlayso. shirkadda Samtel ayaa idin diyaarisay xalkii kala soo deg Google Play ama App Store-ka mobilkaaga abka Inisa Voice Reach Me isdiiwaangeli oo bixi $14.99 oo kaliya kadibna ku raaxayso hadal aan xad lahayn bisha oo dhan. sidoo kale macmiilka wadanka gudihiisa jooga wuxuu la hadli karaa qaraabadiisa dibadda ku nool ee isticmaasha adeegan isagoo loo xisaabinayo inuu la hadlayo qof wadanka jooga. haddaba macmiil la wadaag adeegan eheladaada ee asxaabtaada ku kala nool daafaha dunida. شركة إسكارسين تعسرقة سومتل waxay kugu bishaaraynaysaa adeega internetka ee 4G oo ah mid xawaarihiisu aad u sareeyo. adeega internetka ee 4G
wuxuu kuu sahlayaa dirista nooc kasta oo fiideo ah goob kasta oo aad joogto ama ku sugan tahay. wax ku baro adeega 4G. adeega 4G wuxuu kugu dirayaa fiidiyowga aad doonayso wax ka yar daqiiqad ama ilbiriqsiyo. sharikadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel 4G. duuba u dir saaxiibada. duub oo u dira helkaaga ama qoyskaaga. ha mooganin adeega 4G Somtel xawaare aad u sarreeya iyo qiimo jaban. fariin caafimaad ka hortagga coronavirus si joogta ugu farxala biyo iyo saabuun markaad qufacaysa ba hindhisayso ku dabool afka iyo sanka masar ama softi amba xuduudda adigoo xusulka laabaya haddaad yeelato xumad iyo qufac ha tagin goobaha dadku ku badan yihiin had iyo jeer ee isugu yimaadaan sida sariibadaha dugsiyada iyo wixii la mid ah haddaad qof salaamayso waxaa habboon inaad iska dayso salaanta gacanqaadka oo keliya ku ekaato salaanta islaamka ee salaamu calaykum. السلام عليكم. السلام. سو فريس. ورياه malcaamadahooda madrasadooda looga furaniyo maalin walba waxaasan hayst ciyaal meel wax dhigan xagee ku dhigtaan soo tii la xiray wixii wax ka dhigan jiray madrasadihii oo miyaanad ogeyn shirkadda Somtel inay keentay adeeg la yiraahdo subcis oo quraanka ardaydu iyagoo guryahooda jooga ay ka baranayaan oo ka dhiganayaan oo ka subcinayaan oo markaa waa xagee waa adeega subciso waa adeeg cusub ay keentay shirkadda Somtel oo caruurtu darasada sidoodii wax uga baranaya quraanka oo ay kala subcinayaan ardaydu laga helaya waxaas ma lama haysteen hadaan ka helayni waxa laga helaa xarun kastoo ay leedahay shirkadda Somtel. Somtel samada sare iyo centraalka guud iyo saldhigeena weyn iyo sariirta ku hurudiyo sarifka iyo lacagaha suuqa caalamka oo idil sudan maanta weeyaan waxay keentay saakana adeegan sugayno si weyn loogu baahnaa waa adeega subcis waa adeeg u sahlaya ama isku xidhaya macallimiinta madrasadaha iyo ardayda oo xaafadahoodii jooga inay quraanka bartaan halkooda iyagoo joogana ay ka subciyaan quraanka kuna fahmaan. waxa kaloo shirkadda Somtel ay ku soo kordhisay adeega Ar-Risaala oo aad ka baranayso dhammaan shareecada diinta Islaamka adigoo garaacaya lambarka 228. What is different? Coloring white data, white electronic information. Sidoo aragtida 4G lagu isticmaalayo shirkadda isgaarsiinta si 4G qof kalena aad u xiriirin karto message screen video website aad ugu dirayso listen to screen on website aad ugu dirayso foreign diet message aad ugu dirayso oo download aad ugu dirayso qof kale Wi-Fi tower is called Somalia no networking. That is the numbers. Data department here like Wi-Fi no tower. High speed internet 4G abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. macmil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay application-ka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg
ee idahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba haddaba sidee ayuu u shaqaynaya applicationka dahab plus Google App Store-ka ama Play Store-ka moobilkaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horrayn ku qor nambarkaaga somtel iimailkaaga samaysana baasword kuu gaara ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga idahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahabshiil in ka badan $126 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Daha Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Daha Plus waxaad adeega Dahab Bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee idahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Daha Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Daha Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Daha Plus ku soo dhawow Somtel Soomaaliya ee adeega muraad si aad u gasho adeega muraad garaac xidig 500 gees adeega muraad oo ka kooban 4 qaybood local muraad national muraad iibsa internet iyo sidoo kale xirmooyinka kaafiya local muraad ku shubo $3 oo hel 1000 daqiiqo sidoo kale ku shubo $5 oo hel 2000 oo daqiiqo national muraad ku shubo $5 oo hel 500 oo daqiiqo Puntland iyo Somaliland iibsa internet ku shubo $5 oo hel 6 GB ku shubo $10 oo hel 13 GB ku shubo $20 oo hel 28 GB sidoo kale ku shubo $30 oo hel 40 GB xirmooyinka kaafiya ku shubo $0 oo hel 560 megabyte ku shubo $1 oo hel 1.1 GB oo u dhiganta 1126 megabyte ayna ku dheertahay 10 daqiiqo ku hadal ku shubo $2 oo hel 2.3 GB oo u dhiganta 2356 megabyte ay ku dheertahay 25 daqiiqo oo ku hadal sidoo kale ku shubo $3 oo hel 3.5 GB oo u dhiganta 3584 megabyte ayna ku dheertahay 40 daqiiqo oo ku hadal The number one Somtel 3G and 4G wargelin muhiima bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay xirmooyinka ardayda Daily Student Package oo ka kooban 2 xirmood ku shuba $1 oo hel 2 GB iyo 300 megabyte ayna ku dheertahay 10 SMS iyo 20 daqiiqo ku hadala ku shuba $0 oo hel 900 megabyte ayna ku dheertahay 5 SMS iyo 10 daqiiqo ku hadala kuna isticmaal muddo 24 saac gudahood haddaba ardayaal si aad u rukumato xirmooyinka ardayda garaac xidig 127 gees ورحمة الله وبركاته dhammaan mas'uuliyiinta kala gedisan ee nagala soo qayb gashay barnaamijkan aadku quruxda badan ay idin soo agaasintay shirkadda casriga caalamiga ee Somtel Soomaaliya ganacsatada qaybahooda kala gedisan bahda saxaafadda mas'uuliyiinta shirkadda sidoo kale dadweynaha kale ee nagala soo qayb galay Hello. Somtel, waan ku baahanahay.
ayaanahayo Somtel daruurahan sabeeyaayo Somtel surunkii kastoo idilaa Somtel sikin baan ku gaadhaayo Somtel dadku way sugayaayo Somtel iisa cabtumayaayo Somtel waan saacidayaay shirkadda Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda inay tahaysay adeegyada 2G, 3G iyo adeegga 4G isla markaasna ay ku soo kordhisay adeegga 4G Plus kuwaas oo dhammaantoodba ka haqabtiri doona baahida internet waana internetka ugu xawaaro sareeya guud ahaan dalka Soomaaliya adeegga maalinlaha ku shubo 25 senti oo hel 500 oo MB kuna hadal 24 saac oo bilaasha ku shubo 50 senti oo hel 2 GB kuna hadal 24 saac oo bilaasha ku shubo $1 oo hel 3 GB kuna hadal 24 saac oo xiriira asbuucle ku shubo 50 senti oo hel 700 oo MB ku shubo $1 oo hel 1.5 GB ku shubo $5 oo hel 15 GB bille ku shubo $15 oo hel 1 GB maalin kasta ku shubo $20 oo hel 2 GB maalin kasta sidoo kale isticmaalka adeegyada Kaabe iyo Kaafi adeegga Kaabe waxaad ku shubataa $5 ku hadal bil free ah Puntland oo dhan adeegga Kaafi ku shubo $10 oo ku hadal bil bilaash ah guud ahaan Soomaaliya sidoo kale adeegyadan waxaa la socda 5 GB oo data internet ah internetka shirkadda Somtel waxa uu kala baxaa laba qaybood oo kala ah shared waa internet aad ku isticmaali karto guryaha xafiisyada shaqadoodu yar tahay waana fiber optic xawaarihiisu aad u sareeyo isla markaasina qiimihiisu uu jaban yahay dedicated waa internet fiber optic xawaarihiisu oo aad u sareeyo waxaa loo isticmaalaa xarumaha waaweyn sida xarumaha dawladda kuwa ganacsiga hay'adaha iyo goobaha waxbarashada internetkan waxa uu ku jaango'an yahay inta aad iibsatay marnaba hoos ugama dhacayo inta aad iibsatay xawaare ahaan Somtel shirkadda shacabka muraad maalin leh marka dooratadii mise saacadood baad ku hadli kartaa haddaad ku shubtay 8 habeenimo haddana kaluu kaaga go'aya habeen dambe marka mise saacadood baad dhigtaa 4 saacadood waan ku ambaleynayaa guuleystii koobaad baa tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanaado goobtaada shaqo jooga inaan kugu nimaadno aad guuleysato waxaad ku guuleysatay $5 oo adeegga muraad ee su'aasha ay la xidhiidhaa muddo hal bil baad si lacag la'aan telefoonkaaga Somtel ugu hadlaysaa shirkadda maxaad leedahay shirkadda Somtel waxaan leeyahay dadaalkiina kaga sii wada aad iyo aad baad maasantiin ana waan isticmaalaa mar walba ma garanaysa xitaa waxa casriyo ay keentay inaad habtan ka furgirtaado goobtaada shaqo jooga tiyo bilaa sawira marka waa casri waa kula Somtel هذا موضوع walaal ku soo dhawo barnaamijka garooga guuleysay shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel ugu horeynta magacaaga noogu bilow bismillaahir rahmaanir rahiim waan ku dhawahay marka koobaad magacaaguna waa Cali Bashiir Yuusuf Cali oo xaafadda ka degtay magaalada Hargeysa walaal waxaan deganahay xaafadda Rashwaadan Somtel ma isticmaashay haa waan isticmaalaa su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay ku oranaysaa Cali waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeegga muraad ee maalinlaha lacagta loogu shuban karo iyo inta saacadood ee lagu hadli karo waa adeegga maalinlaha horta adeegga maalinlaha waxa lagu hadlaa waa 24 saacadood laakiin qaabka loogu shubanay dadka kamida ma kaga shubtay garan ma yaqaan liidaafka kaga waasho ها كمان شو يدافع كمان بقى شفتها إن شاء الله حريصين يمكن لقب بالعمل تكشفت أي إن شاء الله إن شاء الله كل سنة برامج كجرو قولي سوي شركة ديسكارتين تعسرية سمتل وقرنت بقى عقنا قبله حسن يحيى محمد حسن ما شاء الله كل سنة برامج كا وكل سنة دوينيا سمتل ما استعمالها حاول استعمالنا وحربينا كويدي سؤال حريدا اللي كده سمتل بيحسوا واحد نور شيء تحبك وقف حدود هذه جمرات مال لها لعقت اللي وقش بنكرو أنت ساعة ولا واحد دورت سمتل في عنته
internetku iyo waxaas dhan aad u fiican tahay weli internet uu fiican tahay aad adigu marka internetku baa isticmaashaa san shanaad waan joogaa Hargeysa ma sha Allah laakiin ku hadalka ma isticmaashaa waan isticmaalnaa muraad ma isticmaashaa waan isticmaalnaa marka muraad maalin laha adeeg waxa jira muraad maalin la yiraahdo ma taqaan habka ugu fudud ee loogu shuban karo weli waxaas uu cusub yahay laakiin waxaan isticmaalaa internetka iyo hadalka waan ku hambalyeynaa ku soo dhawaad barnaamijka Garooga Guuleyso ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel magacaaga noogu bilow waan ku dhawaad walaal magacaygu waa Umar Cabdi Aadan Umarow xaafidad ka digantay magaalada Hargeysa xawaadle walaal Samtel ma isticmaashaa waan isticmaalaa su'aal baan ku weydiinaya su'aashu waxay koranaysaa waxaad noo sheegtay habka ugu fudud ee adeega muraad ee maalinlaha lacagta loogu shuban karo iyo inta saacadood aad isticmaali kartid waxa weeyaan waa 101 waa xidig 101 afargees okay lambarka lacagta imsa saacad noo isticmaali mid waxa weeyaan mid waa 24 hours midna waa 7 aad iyo aad baan mahadsantahay waan ku hambalyeynaa waad guuleysatay maxaa leedahay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel aad baan ugu mahad celinaa shirkadda Samtel barnaamijyadan ay dadka ku dhiirigelinayso iyo baqtiya nasiibada waan hambalyeynaa shirkadda anaguna waan ku hambalyeynaa waxaad ku guuleysatay xirmooyin isugu jira internet iyo ku hadal hambalyaan ku leenahay hambalyo sidoo kale aad baan ugu mahadnaqay waa ku soo dhaw barnaamijka Garooga Guuleyso shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel ku soo dhaw magacaaga noogu bilow waa dhawahay magacayga waa Daahir Maxamed Xasan daahir waxa fidiyad ka digantay magaalada Hargeysa waxaan deegaanay xaafad magaalada Biixi la dhaado ma isticmaashaa shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel adeegyada su'aal baan ku weydiinaya su'aashu waxay koonaysaa waxaad noo sheegtaa adeega muraad ee maalinlaha habka ugu fudud ee lacagta loogu shuban karo iyo inta saacadood ee la isticmaali karo waa adeega muraad ee maalinlaha bismillah haddii aan isku dayo su'aashaas 101 xidig 101 afargees ayaad markaa u isticmaalaysaa imsa saacadood noo isticmaalay oo yaraan adoo 24 saacadood bay isticmaalaysaa waan ku hambaleynayaa waad guuleysatay maxaa leedahay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa shirkadaas waa mahadsantahay $10 oo internet oo muddo hal bilo bilaash oo internet aad ku guuleysatay waa mahadsantihiin wala ku soo dhaw barnaamijka Garooga Guuleyso shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel magacaaga noogu bilow magacayga Maxamed Cabdi Aadan maxamuud oo xaafidada ka tagtay Hargeysa Samtel ma isticmaashaa su'aal baan ku weydiinaya su'aashu waxay koonaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeega muraad ee maalinlaha aad lacagta ugu shuban kartid iyo inta saacadood aad ku hadli kartid okay 101 afargees iyo 4 saacadood ku soo celi maxaad 101 kaliya laga bilaabay mayd xidig 101 afargees binkaaga gelinaysa imsa saacadood 4 saac waan ku hambalyeynaya waad guuleysatay waxaad ku guuleysatay xirmooyin internet iyo ku hadal isugu jira shirkadda maxaad leedahay shirkadda waxaan leedahay hambalyo insha Allah faa'iidada noo keenteen inta si laba jifartaba insha Allah shaqaysanana aad iyo aad maasantay laqa ku soo dhaw barnaamijka Garooga Guuleyso shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel magacaaga noogu bilow wal magacayga Maxamed Cabdiraxmaan oo ku dhaw walaal maxamed waad maasantay Samtel ma isticmaashaa walaal xaafidada ka digantay magaalada Hargeysa idaacadda su'aal baan ku weydiinaya su'aashu waxay koonaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeega muraad ee maalinlaha aad lacagta ugu shuban kartid iyo inta saacadood aad isticmaali kartid wal waxaad ugu shuban kartaa xidig 101 afargees waxaan isticmaali kartaa 24 saacadood waan ku hambalyeynaya $15 oo internet aad ku guuleysatay maxaa leedahay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel shirkadda Samtel u wanaagsantahay waxaan leenahay halka ka sii wada macaamiishiina soo dhaweeya ku soo dhawaad barnaamijka Garooga Guuleyso shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel magacaaga noogu bilow magacaygu waa Xasan Axmed Aadan xasan oo Samtel ma isticmaashaa xaafidada ka digantay magaalada Hargeysa Geershaadin su'aal baan ku weydiinaya su'aashu waxay koranaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeega muraad ee maalinlaha ah aad lacagta ugu shuban kartid iyo inta saacadood aad isticmaali kartid waxa weeye xidig 101 afargees 4 saacadood isticmaali karaa waan ku hambalyeynayaa waxaad ku guuleysatay xirmooyin hadala maxaa leedahay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel shirkadda isgaarsiinta casriga noo soo gordhay waxaan isleeyahay hambalyo insha Allah walaal ku soo dhaw barnaamijka Garooga Guuleyso shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel magacaaga noogu bilow ugu horeyntii mid ku maadsantay walaal magacaygu waa Maxamed Cabdilaahi Cumar waxaan deganahay xaafadda idaacadda Samtel ma isticmaashaa aad iyo aad su'aal baan ku weydiinaya su'aashu waxay koonaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeega muraad ee maalinlaha lacagta loogu shuban karo walaal waxa weeye xidig 01 afargees 24 saacana oo la isticmaalo xidig 01 afargees 01 waa mahadsan ku soo dhawaad barnaamijka Garooga Guuleyso shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel magacaaga noogu bilow magacayga waa Mustafa Cumar Yuusuf wandhow walaal Mustafa Samtel ma isticmaashaa aad baan isticmaalaa su'aal baan ku weydiinaya su'aashu waxay koonaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeega muraad ee maalinlaha ah aad lacagta ugu shuban kartid iyo inta saacadood isticmaali kartid waxaa lagu shuban karaa xidig 101 afargees
waxaad kasii doonaysaa number 4 imsa saacadood ka hadlaysaa 4 saacadood waan ku ambaleynayaa guulaystayaashaad ka mid tahay $14.99 oo internet ku guulaysatay maxaa loo shirkadda isgaarsiinta shirkadda isgaarsiinta waan hambaleynayaa sida ay ummadda ugu adeegayso waxaan leeyahay hambaliyo soo dhawow wala soo dhawow barnaamijka garooga guulaysta shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel ku soo dhawow magacaaga noogu bilow wala horta magacayga waxa weeyaan Sakriya Cabdiga Sakriya xaafadada ka degantay magaalada Hargeysa xagan wiir aan ka degan idaacada Samtel ma isticmaashay aawna isticmaal su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay koonaysaa waxaad noo sheegtay habka ugu fudud ee adeega muraad ee maalinlaha aad lacagta ugu shuban kartid iyo afar iyo inta saacadood isticmaashay waxa weeyaan waa xidig 101 Fargees waxaan isticmaalaa 4 saacadood waan ku ambaleynayaa waad guulaysatay maxaa loo shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel والله واش كذا في عمرته أنا سيدي سمت أنا قاعد تبى سمس كذا أنا فكرت مرادي سمس كذا استعمالها والله كسر برامج كجرو جلسة شركة إسكارسينتا عصرية Samtel مقعد نوع بلو وكده والله مقعد واحد مسافر عبدي أنا كقرب قاعد برنامج كنا إن شاء الله أنا كنا نكون فرحان إنك قرب قاعد حمس سؤال بنكو يديني سؤال شو حيكون الساعة واحد نوع شيء تهبك وجو فضود هذا جمرات مالين لها lacagta loogu shuban karo iyo inta saacadood la isticmaali karo marka 5 ilaa 10 ku shubati adeega muraad marka dhactada walaal mise ka adeega muraad ku hadalka maalinlaha walaal marka waxa isticmaali kartaa 200 oo saacadood marka aad ku shubato 5 ilaa 10 baan ugu yar daatadiisuna waxa weeyaan walaal 5 ilaa 10 ku shubanaysid habka ugu fudud loogu shuban karo walaal waxa ku shuban kartaa 77 أيوة واحد وش فكرتها 101 باور وش فكرتها 101 أفريقيس مركب ساعة ونص والله ساعة مركب لا يجوا إحنا قلنا 6 ساعات هذا لعب قلم إذا 6 قلم لعب قلم مني أبى ما أي هذا متى ولا كسر برامج كجرو جلسة شركة إسكارسينتا عصرية Samtel مقعد نوع بلو ولا مقعد وحوي يعني ليبان آدم طاهر ليبان وحفلتك دقت مقعد هرقيس حافظ اللحيلات اللحيلات كم هذا ما شاء الله Samtel ما يستعمل حاول والله سؤال بنكو يديني سؤال شو حكونا سو حد نوشك تحبك وجو فدود أديك جمرات مالين لها لعقت لو قشوا من كريد ذهب كاي مركه هدي بعد كوش بتينا أنت ساعات كو هديكت هرت دعتها مساء مراد مالين لها مراد كمالين لها واحد كشوا من أصحابك فدود وحوي يعني 137 ها قيبت فوز مركز هيستي لفتي أفلا 9 ساعات نوقع عندك تحيد ساعات إذا تكفلتها قد ما حصل هذا موضوع macmiil ma og tahay in shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Samtel ay barnaamijka Grow guuleyso kuugu soo kordhisay abaalmarino qaali ah barnaamijka waa mid ay ugu tala gashay shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Samtel macaamiisheeda kala duwan inay ku guuleystaan hadiyado qaali ah oo ay kamid tahay laptop cusub موبيل عصري أو نوع سمارتفون كلو يقانو 4G Wi-Fi iyo sidoo kale hal bil oo internet bilaasha waxa sidoo kale yidnaan meesha ka maqnayn hal bil oo aad ku guuleysanayso adeega muraad oo lacag la'aan habeen iyo maalinba aad ku hadli doonto barnaamijkani waxa uu furan yahay guud ahaan macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Samtel waxaana uu ka kooban yahay laba qaybood waxa qayb ka ah qayb aanu macaamiisha kala duwan ee shirkadda aanu ku booqano ganacsiyadooda ama meheradaha kala duwan ay ku ganacsadaan iyo sidoo kale qaybta live-ka ah oo aad si toos ah uga daawataan baraha bulshada gaar ahaan barta ay Facebook shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Samtel ay ku leedahay waxaana daawataan 8 iyo barka habeenimo ilaa 9 iyo barka habeen kasta oo khamiis ah jimcana soo galayo si aad uga mid noqoto guuleystayaasha waa inaad raacdo talaabooyinkani ama waxa lagaga baahan yahay shuruudahani kow waa inaad isticmaasho simikaarka shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel isla markaasina qaybta commentiga ama qaybta fariimaha aad noogu soo qorto inta uu barnaamijku socdo laba waa inaad share gareyso barnaamijka Grow oo guuleyso si aad ula socoto abaalmarinada kala duwan ee lagu guuleysanayo saddex waa inaad like saarto isla markaasina aad ka mid noqoto dadka tirada badan ee ku xidhan barta ay Facebook ku leedahay shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel intaasi kadib shirkadda ayaa kula soo hadlaysa waxaana ay ku sheegi doontaa cadadka abaalmarinta aad ku guuleysatay wixii faahfaahin intaasi dheer la soo xiriir lambarka gaaban ee 333 sharikadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel waxay kugu bishaaraynaysaa adeega internetka ee 4G oo ah mid xawaarihiisu aad u sareeyo adeega internetka ee 4G wuxuu ku sahlayaa dirista nooc kasta oo video ah goob kasta
oo aad joogto ama ku sugan tahay. wax ku baro adeega 4G. adeega 4G wuxuu kugu dirayaa fiidiyowga aad doonayso wax ka yar daqiiqad ama ilbiriqsiyo. sharikadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel 4G. duuba u dir saaxiibada. duub oo u dira helkaaga ama qoyskaaga. ha mooganin adeega 4G Somtel xawaare aad wanaagsan idil ahaantiin baa asxaabta kala duwan ee ku xidhan page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga Somtel iyo macaamiisha kala duwan ee ku xidhan shirkadda Somtel meel kasta aad joogtaan jimco wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeeni Grow Guulayso toddobaadkiiba hal mar ay ka daawataan page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga Somtel ay ku leedahay dagalka Facebook waxaana barnaamijka loogu talagalay in guud ahaan asxaabta kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga Somtel halkaas la isku arko sidoo kale abaalmarino kala duwan ay shirkadda guddoonsiiso macaamiisheeda kala duwan ay jeceshahay isticmaalada kala duwan ee shirkaddu ay bixiso oo loogu talagalay in ugu yaraan barnaamijkiiba ay 18 abaalmarinood ku baxaan sideed ka mid ah abaalmarinahaas waa inaga soo baxeen banaankan booqanay maanta waa arkiseen qaybo kala duwan oo macaamiisha shirkadda isgaarsiinta casriga Somtel ka mid ah la kulanay abaalmarino kala duwan baan guddoonsiinay anigu halkaas ku weydiinay su'aalo la xiriira adeegyada kala duwan ee shirkaddu ay bixiso halkan caaw waxaynu yaal 10 kale oo abaalmarinood oo lagu talagalay macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga Somtel inay ku guuleystaan abaalmarino kala duwan oo 10 abaalmarinood ah 10 abaalmarinood weyn oo yaalaan taasoo macnaheedu yahay barnaamijka hadda un bayna hawada isku aragnay waxaa si mudan in abaalmarinahaasi ay ku jiraan abaalmarino la xiriira adeegyada kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel ay bixiso iyo sidoo kale abaalmarino kale oo iyaguna dhinacyada kala duwan la xiriira oo kamid yahay telefoon casri oo nooca smartphone-ka afka qalaad loogu yeero ama telefoonada caqliga badan macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga Somtel bay shirkaddu u haneysay isla markaasina ay u hibeysay inay caawa ku guuleystaan abaalmarino kale iyaguna la xiriira adeegyada kala duwan ee shirkaddu ay bixiso ayaa halkan inoo yaala dacaaw waxaan leeyahay ku kala tegi mayno ilaa intaanu qofka ugu dambeeya abaalmarintiisa aanu siin doono dhammaantiin soo dhawaadaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan iyo xilli kastoo ay idin tahay oo barnaamijku idin soo gaarayo si aad uga mid noqoto guulaystayaasha habeenkani caawa ee loogu talagalay barnaamijka Grow Guulayso inay ku guulaystaan waa inaad raacdid tallaabooyinkan soo socda oo ay ugu horeyso inaad like saarto page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga Somtel taasi macnaheedu yahay inaad ka mid noqoto asxaab tira badan saaxiibo tira badan oo bartaasi ku xiran iyo sidoo kale inaad share garayso barnaamijka Grow Guulayso ee aad haatan daawanayso shirkadda isgaarsiinta casriga Somtel telefoon barkaaga Somtel ee shaqeynaya hay'ad ku qori kartaa qaybta commentiga haddii halkaasi aad kala xishootid haba u badnaadaan habluhu waxay noogu soo qori karaan qaybta fariimaha gaarka ee messengerka loo yaqaano halkaasi way lambarkooda noo soo dhigayaan anaguna halkaasi kala soconayno telefoonadooda sidaasina ay ku buuxinayaan shuruudaha looga baahan yahay barnaamijka Grow Guulayso inta nagu soo beertay inta hore noo daawanaysay guud ahaan tanaad iyo dad mahadsantihiin soo dhawaadaan idin leenahay farxad bayna tahay inaan kala qayb gashaan barnaamijka si aad uga mid noqotid guulaystayaasha habeenkani caawana waa inaad raacid tallaabooyinkani oo ay ugu horeyso inaad like saarto page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga Somtel oo taasi macnaheedu yahay inaad ka mid noqoto asxaab tira badan saaxiibo tira badan oo halkaas ku xiran si ay ula socotid macluumaadka kala duwan ee shirkaddu ay baraha bulshada ugu talagashay halkaas lagu baahiyo iyo sidoo kale inaad share garayso barnaamijka Grow Guulayso haatan daawanaysid oo qofka ugu sheerta badan habeenkani caawa uu noqonayo qofka telefoonka ku guulaysta toddobaadka dambe ee soo socdana qofka ugu sii sheerta badan barnaamijka Grow Guulayso uu noqonayo qofka laptop-kan ee haatan agteeda la qaadan doona waxaad leeyahay share telefoon iyo sidoo kale lagu helayo computer ama laptop wax aad iyo aad u fiican ka hal share gareyn leeyahay barnaamijkana dhammaantiin aad iyo aad mahadsantihiin waad kaga mahadcelinaynaa sidaad qaybta uga tihiin barnaamijka Grow Guulayso shirkadda isgaarsiinta casriga Somtel barnaamijka shirkaddu waxay ugu talagashay guud ahaan macaamiisheeda kala duwan ee isticmaalada adeegyada kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga Somtel ay bixiso inay halkaasi ay abaalmarino kala duwan ku guddoonsiiso isla markaasina loogula dabaaldego oo taasoo la tusayo in abaalmarinaha kala duwan ee shirkaddu ay bixinayso barnaamijyada kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga Somtel ay ku bixiso inay yihiin kuwa loogu talagalay in macaamiisha kala duwan ee shirkadda lagu laado ku mahadsantiin aqoon isticmaashaan adeegyada kala duwan ee shirkaddu ay bixiso anaguna waxaan leeyahay ka wakiila aad iyo aad baan mahadsantiin ka mid tihiin macaamiisha shirkadda isgaarsiinta casriga
samtel si aad hadaba uga mid noqotid guuleystayaasha habeenkani caawa 10 guuleysta ka kooban ee loogu talagalay inay 10 abaalmarinood ku guuleystaan oo ay ku jirto abaalmarinta ugu qaalisan ee habeenkani caawa waa telefoon casri oo nooca smartphone-ka loo yaqaano waa ina talaabooyinka raacdid waxa ugu horeysa inaad like saartid page shirkadda isgaarsiinta casriga samtel inaad share gareyso barnaamijka Grow oo guuleyso ee haatan daawanaysid iyo in telefoon numberkaaga samtel ee shaqeynaya qaybta commentiga ugu qori kartid haddii halkaas aad kala xishootid habaha u badnaadaan habluhu oo taadaha dad badan baa jooga telefoon numberkayga marba inaan geeyo waxaan ugu soo qori kartaa qaybta fariimaha gaarka ah ee afka qalaadna messenger-ka loogu yaqaano halkaasi oo anaga kaliya telefoon numberkaaga arkayno aniga kaliya aan numberkaaga arkayno markaasina aan adiguna ku buuxinayso shuruudihii looga baahnaa in habeenkani caawa aad ka mid noqoto guuleystayaasha waxay ka sugaysaan buuga guuleystihii ugu horeeyay habeenkani caawa ee ka mid ah guuleystayaasha shirkadda isgaarsiinta casriga ee samtel ee loogu talagalay barnaamijka Grow oo guuleyso abaalmarinta lagu siiyo abaalmarino kala duwan oo habeenkani caawa halkan inoogu diyaara qofka koowaad baynu de koleyba goorahani baad idinkuna iga sugaysaan waxaa xusid mudan qofka ugu horeeyay habeenkani caawa barnaamijka Grow guuleysan soo qabanayna lambarkiisa waxa weeye eber 659 hal eber 399 waa guuleystaha koowaad ee habeenkani caawa ee barnaamijkeena Grow oo guuleyso aad iyo aad buu mahadsan yahay oo ku faraxsanahay inuu nagala qayb galo barnaamijka waa ku faraxsanahay inuu guuleystayaasha habeenkani caawa ka mid noqdo waynu hambalyeynaa idinku idin ka mid yahay idinkuna waxaan rajeynayaa inaad aad iyo aad uga hambalyeynasaan khadka telefoonka haatan si toos ah ugu jira hello salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسر دول على البرامج كي جرو وقول شركة ديسكارسين تعسر قسمت البد كوجود شركة بالمجا عاجة يدري كاجن عاو وقول استياشة كم تهاي. وكل هو سجل جنبه مجا عاجة وعمل بلاش كتود وتشوف مجال البراو. مجال البراو. هذه أيضا كوهم بلينا واحد كوجول ستيشن $1 وهذا الجمهور هذا مدهل بلا يتصل عقلانة على التلفون كاجوجها الله يسامح واحد في قناة فريق اللي هو يرى. المركز ده كوي كارد عمبان كلنا هاي شركة ديسكارسين تعسر قسمت لهم حل هذا هاي. والله شركة الشركة عصرية سمتين بس شركة كلية هذا سولار لقي يخلي سن بالشبكة كو حرام أبان كو بدو بعنا الصعاب يأذن يقول هاد علمية وحنا اللي هالك خلصت ولا كستان على الله مواقف بس وقع عام لكن نصيب كاجا سما برجع ديرت نصيبكم كيف أنا وفرع سنة شركة كلية مرة تدخل أبان قلت إن بدنا كايل فوت شيء وكايل هذا المرة فربنا وكاله شركة عادة نقوم هاد عندنا مرة قبل بيشتغل خبرة ما شاء الله مركله وكهم بليننا هذا يكون ماشي وين سامي هذا يشتغل بالجري يشتغل دواء هذه أيضا ما سنت هاي أدبنا سي هاي كاسنا محوها قولسته حبينكني عاوا وقوري قبكينو ده بري قولستياش طبعا ككوبان لو قلت لك البرامج كجرو قولسو waxaanoo haray guuleystayaal badan waxaanoo haray 9 guuleystay oo loogu talagalay 9 abaalmarinood ay ku guuleystaan guuleystayaashaasi oo dhamaantood idinkuna ka mid ahaan doona aad iyo aad baynu uga hambalyeynaa guuleystihii koowaad si aad uga mid noqoto guuleystayaasha habeenkani caawa barnaamijka Grow oo guuleysay shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel wax lagaga baahan yahay talaabooyinka raacdo waxa ugu horeeya inaad like saarto page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel inaad share gareyso barnaamijka Grow oo guuleysay shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel ee haatan daawanaysid taasi oo sheerto ay ka caawinayso inaad habeenkani caawa noqoto qofka abaalmarinta ugu qaalisan ku guuleysta qofka share badan yahay baa loogu talagalay inuu ku guuleysto abaalmarinta ugu qaalisan telefoonka casriga toddobaadka dambena insha Allah haddii Ilaahay isku keensimo oo halkan aynu soo wada fadhiisano dana waa caafimaad qabna idinku caafimaad qaban waxa lagu guuleysan doonaa computer connected yaala waxa ku guuleysan doona qofka ugu sheerta badan barnaamijka Grow oo guuleyso waxa la yeesheeta yaan la idinka badin hal sheer gareeyo barnaamijka si aad uga mid noqotaan guuleystayaasha abaalmarinaha ugu qaalisan ku guuleysta toddobaadka dambe abaalmarinta ugu qaalisan ee computerka qofka ku guuleysan doona waa qofka ugu sheerta badan barnaamijka Grow oo guuleysada haatan daawanaysid waxa kale oo xusid mudan telefoon numberkaaga Samtel ee shaqeynaya ee gacanta ku haysid ee aan baqtiisnayn aad ugu qori kartid qaybta commentiga haddii halkaasi aad kala xishooto aad tiraahdo dad badan baa jooga asxaab tiro badan baa jooga maraba telefoonkayga inaan halkaasi geeyo waxaana ugu qori kartaa qaybta fariimaha gaarka ee messenger-ka loo yaqaano si gaar ah hablaha oo inta badan iyagu aan jeclayn telefoonadooda ay meelahaasi ku qoraan waxayna ugu qori karaan qaybtaasi messenger-ka afka qalaad loogu yeedho anaga kaliya arki karna telefoon numberkaaga adigana sidaasi ayaad ku buuxinaysaa shuruudaha loogu talagalay guuleystayaasha habeenkani caawa ee barnaamijkeena ay Grow oo guuleyso aad iyo aad baad mahadsantihiin guud ahaantiin aad iyo aad bay farxad weyn noogu tahay inaad ka qayb gashaan barnaamijka Grow oo guuleyso ee shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Samtel shirkadda barnaamijka waxay ugu talagashay macaamiisha kala duwan ee shirkaddu ay leedahay ay ku tiraa waa ku mahadsantihiin habka u isticmaashaan adeegyada kala duwan ee shirkaddu ay bixiso
si haddaba aad uga mid noqoto guulaystayaasha habeenkan caawa ama aad noqoto qofka abaalmarinta ugu qaalisan qaata ee ah telefoonkan hore idinku sheegay waa inaad raacid talaabooyinkani waxaa ugu horeysa inaad like saarto pageka shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel waxaa ku xigta inaad share garayso barnaamijka garowga guulaysada haatan daawanaysid in telefoon numberkaaga Samtel ee shaqaynaya aad haatan gacanta ku haysid dabka aanu ka dhicin aan ugu qori kartid qaybta commentiga haddii halkaasi aad kala xishooto hawa u badnaadaan habluhu waxay nagu qori karaan qaybta fariimaha gaarka ee messenger loo yaqaan halkaasi waa anaga kaliya aan arki karno aad iyo aad bad guud ahaantiin mahadsantihiin meel kastoo aad caalamka ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeeni garowga guulayso ee shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel habeen kastoo khamiis oo jimcaha soo galayeen pageka shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel ay ku leedahay Facebook kulana ee aad iyo aad baan mahadsantihiin shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel waxay kugu bishaareynaysaa inay macaamiisha kala duwan ee saameynta ku yeeshay safarka COVID-19 ee guryahooda jooga in loo diyaariyay adeeg internet oo la magac baxay gurigaaga joog oo ku raaxayso internetka shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel adeegaasi waa adeeg internet ah waa adeeg xawaarihiisa internetkiisa uu sareeyo waxaa xusid mudan in dhaqaalihiisana uu aad u jaban yahay uu la jaanqaadayo duruufaha ka dhashay safarka COVID-19 ee dhaqaale yarida haddii aad $1 oo internet ku shubto waxaa helaysaa hal GB aan idhaahdo 5 GB oo internet ah iyo sidoo kale 500 oo minute oo ku hadala guud ahaantiin aad iyo aad baad mahadsantiin mar kale waxaan leeyahay